kismaayo maanta waxaa isugu tegay dadkii oo dhan waxaa loo tegay meesha arrimo kala duwan qof kastaba qaab kale u tegay qof caleema saar u taga qof doorasho u taga qof dalxiis u taga ay dadka dhan isugu tegay qof hunguri u taga lacag u doonta laakiin ha iloobina mid aabihii qaraxyada la joogtaan ayeelina intii meel idinku shiriyo oo la dhaho bartaas aan isugu imaanay bartaas idinku imaana ku wada shirayna isugu taga oo la idinku qaraxyo ayeelina dad Axmed Madoobe la shiraysaan waa inaad gurigiisa kula shirtaan waa inuu meesha uu dadka ugu taliyo ee geedka hoostiisa aad la fariisataan hadduu maqaayad idinku ballamiyo wadkiina aad u sii tegaysaan my friend aabihii qaraxyada jira aabihii garashada jira aabihii xasadnimada jira aabihii cuqdada jira aabihii isbaarooyinka jira kulli waa madaxdii Soomaaliyeed way dadkaas aabihii garashada gayga iyago anti wadagu waafka barwaaqo horseeday siyaad barru aha aabihii garashada aabihii cuqdada Muuse Biixi buu ahaa waa tigi aabihii isbaarooyinka Muuse Suudiye waa jooga aabihii xasadnimada Xasan Sheekh waa jooga marka aabihii qaraxyada la joogtaan maanta waa in iska ilaalisan aabihii qaraxyada shaqa kale u yaqaan ma leh dad inuu dilo oo waliba qaabo badan ku dilo qofka hadduu wax barto oo jaamacad uu ka soo baxo oo PhD uu noqdo dib waa ku yaraada dilku waa ku yaraada boobku waa ku yaraada waa xishooda waa ka leexda bili aadanka dhibaatadooda laakiin qofka hadduuna cilmi lahayn wuxuu u maleeyaa dadka dilidooda inay tahay darajo meel lagu gaaro wax la boobay wuxuu u maleynayaa wax wanaagsan adayga iyo imtixaankana wuxuu u maleeyaa raganimo which is doqonnimo wax allaala wixii khaldanaa oo dhan uu raganimo u maleeyaa wax allaala wixii xumaa oo dhanna wuxuu u maleeyaa ceeb buu u maleeyaa qofkii inuu dad dilin oo dadka maslaxadooda fiiriyo waa raganimada weeye waa mas'uuliyadnimada laakiin dadka aan cilmiga lahayn qofkii aan dad dilin oo dadka horumarkooda ka taliya waxay dhahaan waxaan dad maaha qofka markuu dadka dilo oo dadka saxariiriyo oo dadka nolosha ku ciriiriyo oo dadka guba iyagoo nool walle waa nin ragaa lee hebel waa libaax markaa Soomaalida badankooda jaahiliin bay u badan yihiin inta tuugada ah ee dadka dhacda ee dadka disha naga raanimo naqaana waa hebel wallahi billahi kulul way lagu leeyahay Soomaalida jaahilnimadeedu waa jaahilnimo way qof ku faanaya aniga hebel baan ahay dadkan dilaa awada cunaa wax ii soo mari kara male ogaad aniga ninkaan ahay waa doqonnimo way ninka ragga wuxuu ku doodaa maxaad ka tagtay majid wanaagsan baad ka tagtay ma isbitaalaad ka tagtay ma iskuulaad ka tagtay ma horumar aad samaysaad ka tagtay kismaayo 1990 siyaad bar wuxuu kaga tagay baa yaal wax cusub oo lagu soo kordhiyay male nothing one building oo lagu soo kordhiyay male hal jid lagu soo kordhinin jidadkii siyaad bar baay ayaal warshadii siyaad bar baay bayal dawladii siyaad bar guriyuhu dhisay oo baay hata dib u habeen lagu ma sameeynin guriyuhu siyaad bar ka tag raganimada aad sheeganaysid maxaa way my friend waa inaad ka tagtaa wax la taaban karo haddaad ka tagi weydo wax la taaban karo my friend haddaad ka tagi weyd dee dad ma tiid runtaanu idiin sheegayna dadkaan dadka dhuminayana haddaayaan dadkaan aad dhuminaysaan ee baadida ah ee xayawaanka ah ee aad leedihiin hor u soco ee hataa fikradooda habeenkii intay fikiraan wax wanaagsan aan ku fikraynin ha dhuminina dadkaan masaakiinta